maanta iyo mawduuca lagaga hadlayo iyo muhiimadda uu waqtigan maanta u leeyahay ma ku talagelinoo waxay ahayd markaan shirki isugu nimid baa war shirkaasaa xidhmaya iyo salaad wax walba ka horeysa horta isaga ina geeya sababta isagaa maanta xadiidu shuunu saaca isagaa inaan istacriifiyo waa qaniin can tacriif dadka inta badan culimadana waan isnaqaanaa inaan axmed madoobe ahayna waa la yaqaanaa waxaan aada ugu faraxsanahay sheekh mutaar roobow oo wasiirka arrimaha diinta ah inuu halkaan intuu taagay isaguna maanta ka jeedinayo qoraalada waxaan rabaa ninka ka hadlaya diin ee shabaab diin ku tuhunsanay intuu maqaamka soo istaago mimbarka inuu yidhaahdo diintay sheegayaan waa sidaa iyo waa sidaas iyo waa sidaas wuxuu garanayaa qof waliba marxaladahan soo bilownay iyo halka wax ka soo bilownay 2 sano iyo 8 bilood anoo diin u xidhan oo Mareykan iyo Itoobiya u xidhan yaa waxaan soo galay xuduudka Soomaaliya iyadoo markii ka horeysayna maxaakiimta aan isku dardarsanay ururadii oo dhan gaar ahaan marka niman la yiraahdo Salaaxudiin oo nimanka hadda shabaabka ku haray Raas Kaambooni Ceel Garas whatever dhowr group aan ahay baan wax isku darsanay isku darsigii waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaan dooranay nin la yiraahdo Caraale oo hadda jaamacad Burca ka dhiga annana ay banka ah ururka aan samaysan Caraale ka ah gudoomiye ururka waa sidoo كان هذا سبب بعد أزمة المحاكم أنا داوع على قبتها لوصل يسديد بلاد بالحنا إيجا ومركز صلاح الدين كي شباب كهري راس كامبوني يعان والله وحيكون شيئين إنك اسمعين أنت قبتان أيكون حكم طبعا أو يمدو وحي هشيس بيكون عليه heshiiskay galeen 6 bilood oo ay joogeen aniga bilood ba shabaabku lacag bay soo diri jireen anoo dhisay waa ku xidhan heerkii galisiinay markii xildhibaan baa la igu soo daayay maana gelin waan ka soo tagay xuduudka markaan dhoobley ka soo gudbay nin baa la igu soo dhiibay Cabdiqani ka wajacay lacag $10,000 Ibrahim Afaan baa ii soo dhiibay wuxuu leeyahay niyo waa Sooriyadii loo imo waxaan rabnaa maamulkii inaan kugu wareejino bacdama gudoomiyihii uu xidhan yahay oo la laayahay tarxiib iyo soo dhaweyn baa la igu talagalay in la igu soo dhaweeyo ana waxa iga go'an inaan kalluumaysiga ku noqdo barnaamijkan aan shaqo kale iska balganacsi galo buuqana aan iska daayo Kismaayaan imid guddi baa la ii soo saaray qoladii Raas Kaambooni caan wala waxay dhahay waxaan doonaynaa nimankii haddaadan ururkii Raas Kaambooni ee muassaska ka ahayd aan shaqadiisii qabanaynin inaan nimankan shariicada islaamka lagu kala xukuntaan wixii aan ku heshiinay oo dhan way ka baxeen Sheekh Mutaar xogaal bukaya doodaas aan galay niman culimo aan u yar guddi bay ii soo saareen maanta uu dhintay waxaa mas'uul ka ah gudoomiye oo ah gudoomiyihii markaa gobolka uu joogay oo ahaa ninkii ahaa Ibrahim Afaan waxaa ku xigay Cabdiraxmaan Macalin Nuur nin la yoon jiray hebel ciise something like that afar qof bay soo saareen anna qolo kale ay la socotay 5 maalmood 3 maalmood baan fadhinay iyo 2 maalmood oo ka horeysay oo fasaxan kala galay doodanadii dheeraad waxay ku soo dhamaatay waxaan ku war Ilaahay wuxuu leeyahay haddaad shay ku doodaan oo diin sheeganaysaan kitaabka Ilaahay u noqdo kitaabkan Ilaahay ku xukuntama jawaabta la siiyay waxay noqotay dooda 3 maalmood iyo 2 dhexda gashay 5 maalmood socotay haddii kitaabka Ilaahay aan ku xukuntaano waxaan ka hor imanaynaa manhajka xarakada qaacida shacbiyana waan luminaynaa bilaa calaykum ay diin ya barnaamijka looga hadlay haddaan qaadano waxaad ka hadlayso oo kitaabka Ilaahay ku xukuntaano waxaan ka hor imanaynaa manhajka macnaheedu waa dastuurka ururku uu leeyahay waxaan luminaynaa taageerada dadka wixii aan u sheegay ya ninka inta diin ku sheegayay
maanta ha sheego taasaan ku kala tagnay waxaa ilaahay waa jabbaar ninkii ah ibraahim afqaan oo sheekh mutaaro maxaa lagu dilay ma kelmadda wax ka bedelan baya waxay isku qabteen soo nafsal kelima maayn ibraahim afqaan ereygii aniga uu igu yidhi ee dhiiggiisa lagu banaystayba ee dhiiggayga uu ku banaystayba isaga lagu dilay laftirkiisa sababtoo masaalix yaa la rabaa in la xaqiijiyo wax diin la yidhaha ma jirto masaalix baa laga hadlayaa maanta ninka culimada ee la jooga oo cali iyo cumar iyo xasan iyo faarax aan odhan karayo hal nin oo culimo oo maanta diin kula joogaa ma jiro waxay kula joogaan cabsi iyo dad masaalix iqtisaadi ah ilaa nimankan daraa'ib bay gurtaan xoolihii bay qaataan wax walbay banaysteen intaasaa lagula jooga laba xaalaa nala guddoon ama culimo ha noqoto aniga dagaalka aan shabaab la galay saldana uma soo gelin siyaasad uma soo gelin inaan madaxweyne ilaa federaal noqdo aan awood sii yeesho uma gelin wallaahi ilaahay dartii waxaan la soo galay inaan la dagaalamo oo aan ka jawaabo haddii aan kitaabka ilaahay ku kala baxano waxaan luminaynaa qaacida shacbiya manhajka xarakadana waan ka hor imanaynaa kelmaddaas intay laagta ya maanta mas-uuliyiintii way wada joogaan shirkaan muhiimaddu leeyahay waan u nin war nimankaani diin kama hadlayaan kuwa aan aqaano caamo ahaa oo dababakarkan aan dawra asaasiya siinay baa maanta waa milyaneer qaarkoodna ay ku dhinteen xagee ka keeneen waxaana ka shaqaynayaan waa masaalix iyo xoolaa la gurtaa meelaha iyaga laga qabto bal dib ugu noqdo fisq kamboni waanu qabanay waxaanu ugu nimid caagan haweenka loogu tago iyo xashiish kale iyo qurun war waa maxay amiirka gabdhaha habeenkii wuxuu ku dhigayay baa la meesha ay diin war waagaan anagu waxaan ku jiray anagu waxaan maanaan aqoonin diin baan ka hadlaynay akhlaaq baan ka hadlaynay qiyam baan dhisaynay dad diin labaanu ahayn war maanta waxaa isugu tagay waa project weliba gacmooyin badan oo kale ay ku jiraan baashaan dib ha loogu noqdo innaga maxaa inala gudboon kuwa aan gacanta ku hayno akhlaaqdooda aan hagaajino dhaqankooda aan hagaajino madaxa yuuqan aan hagaajino balwadda aan ka ilaalino sababta maxaaba tabriir lagugu samaynaya labada qolo dhallinyarada wadaniya iyagu intay isku mid noqdaan oo labaduba diinta ka wada tagaan oo fisqiga waxmaantu meel noqoto kulligan waxba inoo taraysa innaguna dowladnimada aan diin ku ilaalino oo dowladnimada aan dhaqan ku ilaalino oo waxaa keenaya in intuu nin kale u daliishado u yidhaha nin caamo ah loogu daliishado la yidhaha sidana yeelana kana yeelan kan ka qaba ay cillad sii noqoto macno nooma samaynayso waxaan aada u bogaadinayaa shacabku waxaan waa volcano hadduu bareesharku bato qaraxu wuu imanaya shacabku maanta way qaraxsan yihin dareen baa jira aynu isugu wada tagno waxaa jirtay xilligii ingiriiska iyo talyaaniga iyo waddanka gumaysan jireen qaacido 50skii iyo waxaa jirtay moogtay fariq tasud la odhan jiray ama divide and rule qayb iyo xukun maanta waxay ku jiraan hadda goboladan dadka shacabka kacaya waxay leeyihin ree hebel oo ree hebel la socda dowladda la socota ama ree hebel idinka idin gumaadayaan hadhow ama maanta oo dhan waxaasay ku jirayaan waa nadariyadii gumaysiga waa wixii aan 60skii iyo 50skii ka gudubnay iyo kash hadday diiri jiraan ma dadka isku diri lahayn iyagaa maanta qabaa'ilka isugu diray iyagaa samaynaya dadka aynu garab istaagno shirarkan oo kale hala joogteeyo madaxda qaranku way joogtaa dadka aan u sheegno maanta waddada la qaado inay tahay sax horumar iyo ha gaadheen nolol war faleebo aan u geeyo dad kaloora ku haya intii la jeexjeexay lagu daadiyo biyaha oo leen murtadiin baa idiin soo dirtay iyaguna intay lacag soo dirsadaan bay hoosta ka gadanayaan oo qaadanayaan shacabkana way u diidayaan nolol ma taalo war culimoy waxba hoosta ha farorsanin indhaha hoosa u rogina dareen aan jirin ha muujinina fulinimada iska daaya banaanka imaada war ganacsatoy dadkaan ha ku qaaliyeynina waxaanaad bixinaysaan adeer hal naf baan leedahay waan diidayn oo waxba ha siinin oo waxaad ogaataan shilinka aada bixiso
sooba wixii ku dhacay amaam allah ilaahay inuu wax kaa weydiin doono oo kugu soo noqon doonto oo reerkaaga ay geli doonto waxaad bixisay adiga ay dib kugu soo noqon doonto waa hubaal war dawladday warka hoose inta iska daysaan iyo mujaamalada aan intaan si dhaba u istaagno dadkaana dagaalkiisa dadkaan inagu horgalno oo inagu yeenaan cabsanin inagu aan liidka qaadano oo barnaamijkii galno waxyaalaha annaga qiyaamta iyo akhlaaqiyaadka wax ka dhibaya ciidamada iyo cid walba ay ku jirtaan aan tallaabo ka qaadno aad baad mahadsantihiin salaamu calaykum